السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا كحران شبكة قنداب وعشر كيني لبعض كسابسان ودا الشاكيسيغا لغة انجليشكا conversation 2 ودا الشاكيسيغا لبعض درسيغان مانتا يصدح درسي او كلو سودا وحانو كغا هادي دونا أفر كلمدود واللغة انجليشكا مهمة يولي بس سيدا لو يستعمالو afarta kelmadood oo kala ah kelmadda koobaad oo ah this oo ama taqaana kan wax dhow lagu tilmaamo that oo ama taqaana ka wax xoogaa jira aan aad fogeyn lagu tilmaamo this oo ama taqaana kuwan oo wax dhow oo jamaca ama plural lagu tilmaamo iyo those oo ama taqaana wax badan lagu tilmaamo laakiin xoogaa yara fog afarta kelmadood waxay aad muhiim ugu yihiin qof kasta oo baranaya luqadda Ingiriisiga. Caawa waxaanu qaadan doonaa kelmadda this iyo sida loo isticmaalo. Waxaan ka codsanaynaa intaan casharka bilaabin haddii aad shabakada ku cusub tahay inaad subscribe saarto adigoo taabanaya buttonka subscribe, sidoo kalena gambaleelka furato, share garayso, like ku darto. aad baad u mahadsantahay haddaad horey usoo tirina waan kaaga mahadcelinaa. Thank you so much. casharkeena aynu bilaabano A iyo B xaggan ma taqaanaa left side ka ama dhanka bidix waxaynu ku qornay su'aalihii, dhankan ma taqaanaa right side kana waxaynu ku qornay ama dhanka midig jawaabihii. marka su'aasha jawaabtu way isku hor qoran yihiin, farta aad baan u weynayay si qof kasta uu arko, marka la socod wanaagsan. kelmadda koobaad oo this ahayd baynu caawa gudgal doonaa dilaan. What is this? waxani waa maxay? What is this? waxani waa maxay? jawaabtu waa tan ka horeysa B. This is a pen. waxani waa qalin. This is a pen. waxani waa qalin. su'aasha labaad. What is this? waxani waa maxay? What is this? waxani waa maxay? This is a pencil. waxani waa pencil. This is a pencil. waxani waa pencil. وقالين كذلك ممكن فرت براني أنا لقوا في البرتا قالين قريقة ونقانا مقالين رصاص كأنه نقانا. تصدحات what is this وحني وامحي what is this وحني وامحي this is a book وحني وا book this is a book وحني وا book. what is this وحني وامحي what is this وحني وامحي this is a form وحني وا float. this is a form وحني وا float. halkan waa floor ka mataqaana kursiga ciyaalka ku fadhiistaan marka iskoolka la joogo ee laga sameeyo qubaanka qoryaha iyo laga sameeyo macna kalena way yeelataa oo foomka caadiga ee mataqaana la buuxiyo kala way yeelataa macna dhowr kale macna laakiin ka saasina u jirtaa. what is this waxani waa maxay? what is this waxani waa maxay? this is a table waxani waa miis. this is a table waxani waa miis. what is this waxani waa maxay? this is a man kani waa nin. this is a man kani waa nin. what is this kani waa maxay? waxani waa maxay? this is a woman tani waa haweeney. this is a woman tani waa haweeney ama gabadh. what is this waxani waa maxay? this is a boy kani waa wiil. this is a boy kani waa wiil. what is this waxani waa maxay? this is a girl tani waa gabadh. this is a girl tani waa gabadh. caawa darsigeena intaas ku keenana saad aragtaan kelmadda this waxaad isticmaalaysaa wax dhow oo mataqaana ama gacanta aad la gaarayso ama in yar ku jira waxayna qaadataa is. sidoo kale waxaad isticmaalaysaa wax mufrada ama kaliya ama singular saad u taqaanid waad isticmaalaysaa. intaas bin caawa ku joojinaynaa haddii ilaahaymo. haddii aad ku cusub tahay shabakada subscribe saar, like garee, share garee, intaas ba isugu dar haddii ilaahaymo. marka noole iyo ma noolaba waad isticmaalaysaa. hadda qalin baynu soo isticmaalay, dadna inagoo isticmaalanayna waa kuwan afartan dambe waa dad baynu isticmaalay. xaggaana ashyaa ama shayanu soo isticmaalay. xayawaan baad isticmaali kartaa adigu wax kastoo tilmaamaysa oo dhow this استعمال. انتاس بعاو درسي بينو كويقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.